Qisada gabadhii indhaha la'ayd. Waxaa jirtay gabar indho la'. Waxay aad u necbeed nafsadeeda, waayo way indho la'ayd. Waxaa kaloo ay necbeed dadka oo dhan. Waxaa jiray hal qof oo ay aad u jecleed kaasoo ahaa saaxiibkeed. Waxa uu ahaa mid markasta iyada la joogo oo aad u jeclaa. Waxa ay ku tiri, haddii aan mar qura arki lahaa dunidan iyo dadkeeda, waan isguursan lahayn. Maalin maalmaha ka mid ah, qof ayaa ugu deeqay labadiisa indhood. Hadda wax kasta way arkaysaa, xitaa saaxiibkeedii way arkaysaa. Waxa uu ku yidhi saaxiibkeed, iminka dunida waad aragtaa, miyaanan isguursaneyn? Gabadhii waa ay naxday. Kadib markii ay ogaatay in saaxiibkeed isna uu indho la' yahay, waa ay ka diiday guurkii, waa ayna ka dhaqaajisay. Wiilkii waa uu dhaqaaqay, isagoo ilmeynaya. Waxa uu u soo qoray warqad sidan u qorneyd: ku raaxayso indhahayga qaaliga ah. Waxa uu ahaa kan u hibeeyay indhihiisa. Marka ay duruufaheenu isbeddelaan, sidoo kale maskaxdeenu ayaa isbeddesha. Dadka qaar ayaana awoodin inay arkaan ama ay xasuustaan xaaladii ay ku sugnaayeen hadda ka hor. Waxaa macquul ah inaysan awood u lahayn inay ka mahadnaqaan. Waxaa jira casharo badan oo dhiirigelin ah oo laga qaadan karo sheekadan. Waana mid ka mid ah sheekooyinka dhiirigelinta ah ee ugu cajiibsan uguna caansan dunida.